Wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhawaada waraysi gaaban oo aan kaga hadli doono taariikh nololeedka abwaanada Ismahaan Cabdikaafi Guuleed oo ku magac dheer Ismahaan Caraweelo. Haddaba waa tuma Ismahaan Caraweelo. Ismahaan Caraweelo waa gabar Soomaaliyeed, magacaygu waa Ismahaan Cabdikaafi Guuleed, laakiin Caraweelo waa la igu naanaysaa. Okay, Ismahaanay gobollo badan Soomaaliya ka tirsan waa adiga ku soo dalxiisay. Ilaa iyo hadda waxaan ku wareersanahay Ismahaan Caraweelo xagee bay ku dhalatay? Waad mahadsan tahay. Horta Ismahaan Caraweelo waxay u dhalatay gobollada Soomaaliyeed kulligood bay u dhalatay, laakiin si khaas ah waxaan ku dhashay dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee gobolka Doolo, magaaladiisa Wardheer, miyigeedii baan ku dhashay. Heerkaadii waxbarasho xagee baad ku soo qaadatay? Waad mahadsan tahay. Anigu milihii taariikh dheer oo fara badan waxaan dugsigayga sare ku dhigtay magaalada Kismaayo, iminkana jaamacadaha Muqdisho mid ka mid ah baan dhigtaa. Maxaan goorma ayay kugu dhalatay inaad wax curiso? Horaantii yaraanteedii waxaan curin jiray walow aanan maarta u badnayn, laakiin markii aan weynaaday ayuunba waxaan isku arkay inaan hal abuur leeyahay, kadibna bulshada ayaan soo bandhigay. Intaadu badanaa waxa ay taawataa jacaylku, ma dareen adiga xaggaaga ka socda mise waa dareen aad bulshada la wadaagayso? Waad mahadsantahay. Horta qofka hal abuurka ahi ama abwaanka ahi badanaa nafsadiisa aad suugaantiisu ugama hadasho, laakiin bulshadu inta badan ka hadlaa. Way jiraan suugaanteedu inay jacayl u badan tahay qaarkood, laakiin aniga inta iga hadasha way yar tahay. Ismahaanay marar badan waxaad ka hadashay geela, laakiin maasadii ugu dambeysay lacag baa u soo bedeshay. Ma is dhihi karnaa geeli way ka baxdo dhanka iyo lacagtay soo aaday? Maya sidaa ma aha. Anigu kama bixi geeli, iminkana waan doonayaa haddana ilaa mid iga bixinay waa isagana waan kala taagayaa. Laakiin qofka hal abuurka sidaan kuu sheegay mar walba waxyaalaha bulshada ka dhex jira buu soo qaataa. Sida darteed maasada lacagta ka hadlaysay waa wax bulshada dhexdeeda ka jiray, aniguna soo qaatay oo macnaha ka hadlay, laakiin ma ahayn aniguna lacagta doonayo. Lacagsi waa la iska rabaa. Okay, Ismahaan ardayda qaar oo aad jaanis hayso ama aad firaaqo leedahay maxaad jeceshahay inaad qabato? Walaal waxaan jecelahay inaan wax akhristo, sidoo kale qoraalkana waan jecelahay. Su'aasha ugu dambaysa aan ku weydiinayaa waxay tahay gabagabadii barnaamijkan sii mareynaaye nin noocee ah ayaa jeclaan lahayd inaad guursato? Nina waad mahadsan tahay. Horta kii alla igu soo beego calafkayga ii keeno waan ku qanacsanaan doonaa. Qofkuna dooq buu leeyahay haddaan iska sheego way igu soo kala yaacayaan, ma doonayo inaan iska sheego. Taageerayaashaadu maxaa fariin u diraysaa? Wasalaam yarta dhammaan ummadda Soomaaliyeed, inta i jecel, inta aan jeclahay, inta i taqaana, nabad iyo baraare ku waara inta aan oranay. Sida wacan